waan ogahay in dadka qaar ay neceb yihiin ama ay ka cabsadaan filimaanta horarka ah, balse aniga waxaan ahaa mid aad u jecel aadna u xiiseysa daawashada aflaamtaas. Filim kasta oo cusubna waxaan jeclaa inaan noqdo qofka ugu horreeya ee daawada. Waxaana jiray 2 asxaabteyda ka mid ah oo iyakan sidaan u jeclahay si ka daran igula jeclaa. Aana mar kasta isla daawan jirnay filim kasta oo cusub oo horar ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa mid asxaabteena ka mid ah ayuu noo soo jeediyey inaan waxyaabahan soo borobeeno. Wuxuuna yidhi bal ka warrama haddii aan baxno ana aadno meelaha qadiimiga ah ee meelihii hore ee laga guuray aan xilligan la deganayn ee cabsida leh. Waxaana ku dhahnay waa fikrad fiican, waana soo baxnay waxaana soo aadnay meelihii weliba dabaqyadii ugu dheeraa ayaan soo fiirnay oonan ahaa kuwa aanan la deganayn mar horena laga guuray. Saaxiibadii mid kasta waxa uu watay kaamiro, waxa uuna sawirayay waxyaabahaas. Balse arrinta cajiibka ah ee igu dhacday ma ahayn arrinkaas, waxaa jirtay qiso igu dhacday bil ka hor. Aniga iyo 2deeda saaxiib waxaan ku ballansanay maalinkaas inaan aadno meel qadiimi ah oo cabsi leh oo ku taalo meel cidla ah. 2dii saaxiib ayaa ii imaaday waxayna maalinkaas ahayd maalin Sabti ah. Waxaana soo wada raacnay gaariga. Waxaana gaariga waday saaxiibkay Daniel. Antonina waxa uu ahaa mid gadaal fadhiya. Saan u soo soconay xilliga markii ay habeen noqotay ayuu meel naga soo leexiyey. Waxaana iga maanay ugu dambeyn meeshii aan rabnay. Waxaana dhahay saaxiibkay intaa ka badan baabuur ma la wadan karo, waa inaan lugeynaa. Waan soo baxnay waana soo lugeynay anagoo ku soconno dhulka. Meeshu waxay ahayd meel ka duwan meelihii hore ee aan soo aragnay. Waxaana dareemayaa cabsi aad u daran, aanan aqoonin waxaan ka cabsanayo. Waxaana weydiiyey saaxiibkay, saaxiib maxaa khaldanahay intaan ka badan xaggee noo wadaa? Waxaa dhihisay wax yar ayaan la soconayaa, wax badanna ayaan la soconaya. Wuxuuna yidhi wax yaraa dhiman igu qaata, wax yaraa ka dhiman meeshii. Haye ayaan ku dhahnay. Markaan xoogoo soconay ayuu saaxiibkay Antoni dhahay, allah kaamiradaydii ayaan soo ilaaway. Daniel ayaa waxa uu weydiiyey kaamirada ma hubtaa inaad wadatay mise gaariga ayaa usoo dhex tagtay? Wuxuu waa hubaa inaan watay oon soo qaatay, waxaana uga soo dhex tagay gaariga, waana hubaa midaas. Hadda ayaan soo qaadanaya waan idinka daba imaanayaa. Haye ayuu yidhi saaxiibkay kale. Wuxuuna ku yidhi wadadan leh soo hay oo ha ka leexanin wadadan. Ani iyo saaxiibkay kale waan soo wada soconay ilaa aan soo gaarnay guri qadiimi ah. Uuna saaxiibkay igu yidhi waa kan gurigii aan ku sheegayay. Guriga waxa uu ahaa mid derbigiisa uu dulduleelo, uu meel kasta gees kasta uu ka jeexan yahay sida inuu daaqado badan leeyahay camal. Saaxiibkay waxa uu yidhi maxaa khaldanne? Lambarka saaxiibkay fariin uma diri kari. Wuxuuna ii soo qorayaa location oo keliya. Maxaa ka khaldan? Wuuna i tusay wiilkii. Waxaana dhahay waxaan waa wax iska caadiya. Signalka ayaa ka maqan ayaa laga yaabaa. Wuxuuna igu yidhi may signalka aniga waa uu ii joogaa, si kama maqnaan karo, macquulna ma ahan. Isagii waa uu sii yaabanaa, waa uu sii fiirinayay. Balse aniga waxaaba muhiimada saaraya ama focuska aan saarayay guriga. Waxaana ku dhahay guriga meeshaas wax inuu maray ayaan u malaynayay, ma aragtay? Tooshka ayaan markiiba la soo baxay. Waxaana bilaabay tooshkii inaan shido. Waxaana ku soo dhawaaday guriga. Waxaana dareemay guriga inuusan ahayn mid cidla ah ama mid laga maqan yahay, ee uu yahay mid la joogo. Anigii waxaa ii bilaabatay naxdin iyo werwer. Tooshka ayaan ku iftiimiyey. Waxaana arkay shumacyo iyo wax shidan. meeshan waxyaaba kaloo ku yaa ku sawirnaa. Amar ayuu saaxiibkay gadaal iga taabtay, waana naxay. wuuna igu qoslo, wuxuuna igu yidhi miyaan kaa cabsiyey? waxaa ka cabsan, meeshan waa iska cidlo, waana iska caadi. balse aniga cabsidiisa waxaa iga darneyd cabsi kaleeto oo aan dareemaya markaas. sanka ayaana yara qabsaday.
saaxiibaha cabsin aniga ayaa kula jooga ayaan ku dhahay. Markiiba wuxuu bilaabay saaxiibkay inuu u dhaqaaqo dhankii guriga una fiiriyo. Hal mar ayuuna kitaab isu dhaqaaqay. wuxuuna yidhi qof ayaa meesha ku jira muujeedaana oo meeshaas ku dhibaataysan si ila tahay qofkan qof nool inuu yahay ayaan malaynayaa. taleefankiisa ayuu soo bixiyay haddana meeshiisa ayuu iskaga celiyey. wuxuuna yidhi hal mar adiga isug bannaankaaga joog gudaha isku soo gelin. aniga ayaa gudaha galayo, aniga ayaana soo fiirinayo waxa uu qofkaas yahay meesha jiifo, inuu nool yahay iyo inuu dhintay labaduba. saaxiibkay waa wuu dhaqaaqay dhankii qofkii, wuxuuna bilaabay inuu gacantiisa aadiyo dhankii iyo qofkii meesha yaalay. hal mar ayaa waxaa meesha ka soo baxay naag aan aad ula yaabnay, aadna uga cabsanay. iyadoo qaabkeeda markii aan u fiirsaday waxay ahayd naag aad moodo in ay intaasoo sano ka hor dhimatay. waan yaabay. saaxiibkii ayay isla doodeen, waxayna ku haysay waryaha meesha maxaad ka soo doontay? ma waxaad rabtay inaad adiguna dhimato? maxaa kaa khaldan? dhimashadiini waxaa ka hadlaysid maxaa waa meeshan booqasho ayaan u imaaday ayuu yidhi. meeshaan meel loo soo dalxiis tago ma ahan ayay ku tiri, balse isaga wuxuu ahaa mid iyada la doodaya sida inay laba qof oo isdagaalaysa camal. waxyaabaha ugu yaabka badanee iyada lahayd waxaa ka mid ahaa ilka dhaadheer oo aadba moodo ilka kaniini camal inay yihiin. saaxiibkii waxa uu yidhi ani meesha waxaa imaaday qofka inaan caawiyo, waana fiirinaya warkayga daa. gacanta ayuu la aaday, waxayna ku tiri ka joog dhibaato ayaad lugaha la gelaysaa. saaxiibka markuu u sii waday ayay hal mar gacantiisa ka qabatay iyadoo dhehayso maya. saaxiib is ilaali ayaan ku dhahay, waxaana usoo dhaqaaqay dhankii. wuxuuna igu yidhi may adaa soo dhaqaaqin. saaxiibkii waa uu kala tuuray, iyadii gadaal ayuuna u tuuray. balse markii ay sii dhacaysay ayay gacanta ka xagatay isaga. balse saaxiibkii wuxuu sii watay go'aankiisa, waxa uuna fiiriyay qofkii meesha yaalay. balse waxa ugu naxdinta badan waxay ahayd qofkii meesha yaal waxa uuba noqday saaxiibkeenii doontay kaamirada. anigii waan wareeray, naxdin daraaddeed waana dhacay. xilligaas kadib wixii dhacay nimaan ogeyn. saaxiibkii ayna sheegay inuu meesha signal ka waayey, uuna wax yar kadib signal helay, uuna booliiska markiiba wacay. booliiskana ay noo imaadeen. saaxiibkii ayaan 2 maalin kadib aaskiisa tagnay, balse ilaa iyo hadda waxaan aamini la'ahay saaxiibkay inuu maalinkaas dhintay, dhimashadiisana aan anaga sabab u ahayn, aanan u geyn naagtaas baalada ah.